munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug laga qoray madaxweynihii afraad ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa lagu soo bandhigay hotel Cafe ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay munaasabadan lagu soo bandhigayay buugga maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco Salaadiin Cuqaal dhalinyaro aqoonyahan haween iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi dhammaan ka soo qaybgalayaasha hadday tahay madaxda iyo hadday tahay cuqaasha iyo hadday tahay xisbiyada qaranka iyo haweenka hadday tahay qurbajoog hadday tahay dhammaantiin aad iyo aad baxan idinka mahadnaqayaa inaad soo ajiibteen inaad ka soo qaybgashaan buuggan laga qoray madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkadda daabacadda ee Sagarjad managerka Maxamed Daahir aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga waxa soo dhan noo fududeeyay aad iyo aad waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa runtii shirkadda iyaduna layrka ee heeko oo iyaduna runtii iyaduna nagala qayb gashay aad iyo aad baan ugu waxaan runtii aan la'aantood qaban karay oo iyaguna na soo dhaweeyay oo noo fududeeyay oo nala shaqeeyay mulkiilaha ee hudheelka la joogna Cafe Hotel oo runtii hudheelada gobolka nooga sirtan madaxweynihii hore oo hadda aynu buuggiisa u fadhino oo qoraalka loo soo bandhigi doono ayaa laba arrimood oo anigu goobjoog ka ahaa oo runtii aan arkay labadiiba ayuun baan runtii doonaya inaan idiin sheego anaa musharaxa idinkuna anaa dooranayseen lay odhan maayo dalkan aanu soo halgamay aanu soo dhintay carqalad buu ka dhaliyay waan aqbalayaa idinkuna aniga hadday la shaqaynayseen waynu aqbalaynaa taageerayaasha sidii buu u sheegay dabeetana nin baa su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi waxay 2010 bishii labaad bishii lixaadna doorashada ahayd hadday dhacdo mar labaad in haddana layna boobo ka warran buu yidhi oo adna aad tiraahdo dalka lexajacel aniga haysan waan yeelaya wuxuu ku yidhi maxaaba laynoo boobi 300 kun aynu ku dhaafno munaasabadda ujeedkeedu waa ka boodhka ku qoran waa daahfurka buugga Axmed Silaayo oo halkan caawa uu ku sugan yahay qoraagii buuggaasi qoraaga buuggan xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Xartan ayaa isaguna si qoto dheer uga warramay buuggan uu ka qoray madaxweynihii hore Soomaaliland mudane Axmed Silaayo buugga waxaan u bixiyay magaciisa Axmed Silaayo nin tacab badan geliyay qarannimada Axmed wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii aad tacabka badan u geliyay barnaamijka la yiraahdo iska wax u qabso dadku waxay u haystaan inuu siyaad baraalifay Axmed Silaayo alifay wuxuu ahaa Axmed Silaayo ninkii 1988 go'aanka qaatay ismaqiiqii lagu soo galay dalka markii Itoobiya mingiste iyo siyaad bare ay heshiiyeen Axmed markii uu xisbi mucaarad noqday wuxuu ina baray oo hogaaminayay xisbigii kulmiye oo mucaarada 8 sanadood wuxuu ina baray mucaaradnimada sida si ilbaxnimada si loo mucaarado wax Axmed wuxuu noqday madaxweynihii Soomaaliland marka laga bilaabo 2010 7 sanadood buu hogaaminayay waxyaabaha cajiibka ah ee uu leeyahay waxa weeye himilooyin uu markuu wasiirka ahaa himilooyin uu doonayay inuu fuliyo oo ay ka mid ahayd wadada Carigaabo iyo Burco isku xidha markii uu madaxweyne noqday wadadii dekedii Berbera ayuu bilaabay ballaarinteedii iyo inuu u helo dad maalgashi oo aynu ognahay maanta dekedii Berbera noqotay deked caalami ah oo la tartamaysa dekedaha Geeska Afrika himilooyin kale Axmed waxa ka mid ahaa inuu caalim al-carabi intii Axmed Silaayo ka horeysay ma aynu xiriir lama lahayn caalim al-carab Axmed isaga ayaa bilaabay caalim al-carabi gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna bogaadiyay buuggan laga qoray madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ninka sidaa u halgamayay ee moralka uu keenay isagu lagu qabsanayay dadka dhan lagu badbaadinayay buu horta Axmed Silaayo ah taariikhdiisana lama qarin karo cadceedna sacab laguma qarin karo annagu hadda isleediin qoladayada mucaaradkii Axmed waanu maagayna Axmed maagi mayno Axmed waxaanu leenahay halyay qaran buu ahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Axmed Silaayo wuxuu inoogu suntan yahay astaamo aad iyo aad u badan Axmed Silaayo waxaanu maranayaa caawa ducun buu halkan uga baahan yahay wixii waddankan uu ka soo qabtay
hadday dawladdii Soomaaliya ahayd iyo hadday SNM tahay iyo hadday Somaliland tahayba wax badan buu soo qabtay ilaahayna ha ka raalin noqdo ex-president-keenii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye ilaahay cimriga ha u dheereeyay waa muwaadin waddankiisa soo gashaday maalkiisa iyo muruqiisa soo gashaday waa muwaadin mudan la karaameeyo marka la yiraahdo muxuu Axmed ahaa ayaa runtii waxaan ku tilmaamayaa inuu ahaa madaxweyne go'aankiisu iyo akhlaaqdiisa iyo taladiisaba raxmad badan ay ku jirtay madaxweyne markay arrimuhu qaraadaan ee Soomaaliland ama isqabqabsato ama buuq ka dhaco madaxweyne wax badan xeeriya oo tanaasul badan buu runtii ahaa xubno ka mid ah salaadiinta gobolka Togdheer iyo maarayii hore haamaha shidaalka ee Berbera Sheekh Saleebaan ayaa iyaguna ka waramay taariikhdii hogaamiye Axmed Silaaye ku lahaa Somaliland iyo sidoo kale mandaqada Geeska Afrika laakiin qaar badan oo imika yar bay u wacan tahay inay taariikhiyan sidii ay u fahmi karaan isaga iyo wixii la mid ah dalka wuxuu qabtayba in maxay tahay la ogaado oo dadkii jiilkii soo socda uu ogaado oo barto Axmed wuxuu ahaa nin dul badan oo aad iyo aad u dul badan oo dadka talada wax ka siiyo marka qofku mar hadduu dadka talada wax ka siiyo waxa weeye runtii waa hogaamiye asal weeyaan madaxweynihii Axmed Maxamed Silaaye waa soo wada shaqeynay nin qaaliya buu ahaa hogaamiye ah igumar hadduu dulqaad leeyahay oo daacad waxa isku ogtihiin aanu ka baxaynin aad ugu imanayso waxa ku ballantaan waa hogaamiye Axmed waduu jeexay wuxuuna wado u jeexay ummadda hanka iyo hogaanka dalka yaani waxa weeyaan ku hamiyaysa ku fakaraysa sifaadkii hogaamiye lahaa lehbu ahaa insha Allah taala aad iyo aad waxaan ugu adkeynayaa dhalinyarada sharafta badan inay buugga akhriyaan oo ay ka dhigtaan role model ay ku dayasho inay ka dhigtaan taariikh ka dahsoonayd oo ka dadnayd ayuu inoo soo bandhigay oo soo ururiyo tacab badan geliyay iyo waqti badan waxaan leeyahay xildhibaanka ilaahay khayr badan ha ka siiyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday ayaa iyaguna hoga tusaaleeyay siyaasadii madaxweyne Axmed Silaaye ku maamulay talada dalka muddadii 7 sano ahayd uu maamulayay dalka madaxweynahani maanta Axmed Silaaye halkan buugiisa lagu hayaa abaalkii qarankan iyo dalkani uu ku lahaa uu ka soo baxay waajibkii dalkiisa hadday min bilowgii xornimada markii la raadinayay tahay ilaa iyo maanta oo dhisitaankii iyo horumarkii qaranka laga hadlayay tahayba waajibkii qarankani ku lahaa uu ka soo baxay waxa la inooga baahan yahay bulshadeena reer Soomaaliland inaan abaalkiisa celino waa habeen aad iyo taariikh u ah xafladan daahfurka waxa weeyaan bandhiga buuga madaxweynaheena qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Silaaye madaxweyne deeqsiya madaxweyne waxa weeyaan degan madaxweyne go'aan leh Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco